asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan soo dhowaada meel kastoo aad nagala socotaan iyo xilli kastoo ayin tahay. rabaa inaan idinla wadaago barnaamij aad iyo aad u xiiso leh. waa arrin qabsatay gabadh soomaaliyeed oo waqtina way la wadaagtay barnaamij aan anigu ka naxay. barnaamijka ayaan soo tiibi doonaa, laakiin ma sheegi doono magaca iyo halkii ay joogto gabadho. keen halkaad igala socotaan waa Cabdi Official Vlogs. waxaa laydinka codsanayaa dhammaantiin Soomaali weyn iyo meel kastoo aad joogtaanba kanaalka inaad subscribe, like and comment and share intaas baad la wadaagtaan asxaabtiina. waad mahadsantihiin. soo dhowaada mar labaad. sheekadu waxay ku bilaabatay sida tan. badaya waxay ii soo wacday 4 habeen ka hor. markaasna waxay ii sheegtay in ay jirto arrin iyada dhibtay. arrintaas oo arrin jacayl ah qabsatay wiil Soomaaliyeed. wiilka Soomaaliyeedna oo u geystay wax lama filaan wiilku wuxuu joogay dalka Afrika dal ka mid ah. waxay joogtay isdanaafyaanka. waxaa dhacday gabadha in ay dadka iska barteen wiilka maalin maalmaha ka mid ah, markaasna ay wada sheekaystaan. waqti badan ka bacdi waxay bilaabatay jacayl iyo muxubbo la isu qaado. bacdi waxaa imaatay gabadhii in ay baxdo aado Afrika because waxay rabtay wiilkii inay soo booqato. wiilkii ayay u tagtay. markii u tagtay ayaa waxaa dhacday wiilkii iyadu inay waa 2 qofood oo jacaylna ka dhaxeeya. arrimo xid ka baxa ay dhex mareen maadaama uu meesha aalin wax maharaac. gabadhu way fududaatay. bareegeeda ayaa furmay. markaasna waxaa dhacday gabadhii way soo laabatay. sheekadii waxay socotaba la sheekaysto laguna heshiiyey in la isguursado. waxaa dhacday wiilkii inay gabadhi keento isdanaafyaanka wadan ka mid ah u soo dacwoto because waa jacaylkeedii. markii ay keentana waxaa dhacday inuu ku yidhi anigu kuma aqaano, laakiin waxaa jiray already uur oo gabadhu hore u qaaday markii uu dhacay qaladkii ka dhacay labadooda oo ammaankii uu furmay. laakiin ilaahay ayaa ogay. gabadhu maskiin ayay iska ahayd, daacadna way ahayd. waxay isku dayeysay inay saaxiibkeeda cusub amba odageedii ay soo dhaweynayso isku daydo qalbigiisa inay ka degto. laakiin shaydaan ayaa ka xog gudbiyo iyada asiga daraaddii ayaa xagga u aaday. markaasna waxaa dhacay qaladaad alleh oonan ogolaanin. dhammaan waxaan leenahay gabdhaha Soomaaliyeed hees asturaano. nimankay la sheekaysnayana waa inay ogaadaan inay yihiin niman alla ku xiran, allana ka baqaya because marna ma loo baahno in laga galo qalad. gabdhaha Soomaaliyeed way nala dhasheen, waan dhalnay, waynoo dhexeen, wayna noo dhexi doonaan. waardiyowna waardiyeynoo yihiin. marka gabadhii uurkii way dhashay. ilaa hadda wuxuu la joogaa canugii dalkii isdanaafyaanka oo Yurub ka mid ah.
gabadhina waxay leedahay xaaladdu way igu xun tahay, walaalahay waalidkay way iga go'een sababtoo nin aan i qabin ayaan jirkayga u oggolaaday. taasna waa mid xaaraan waxaynu leenahay gabadha ilaahay ha u fududeeyo, waalidkeedna waxaynu leenahay waalid walaal gabadha ha xumaynina, shaydaan ayaa ka dhex adeegtay. weli halkaad naga daawanaysaan waa Abdi Official. Followgiis waxaan idin lahaa subscribe, like and comment and share. intaas baa hilmaaminina wana mahadsantihiin. thank you dhammaantiin. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.